doorashadii madaxtinimada ee maanta ka dhacday Jubbaland waxaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweynaha xilka haya Axmed Madoobe oo ay la tartamayeen laba musharax kale oo kala ah Faysal Maxamed Mataan iyo Abuukar Cabdi Xasan. haddaba sidee ayay u arkaan shacabka magaalada Muqdisho doorashadii maanta ka dhacday Jubbaland oo lagu doortay Axmed Madoobe? doorashadii Jubbaland ka dhacday maanta hada macnaha aragtideeda sida aan aqabada ka hadlo doorashadaasina oo horto doorasho jirta maaha oo 8 bir soo dooranayo oo xildhibaan iyo wax kulli madaxweyne hal mar la dooranayo weligeed lama sheegin Axmed Madoobe weligiis kaligiis dooran jiray reer Jubbaland raalimka ciidamadaas horta Taliskambuun la geeyay aad u soo dhaweynaya Axmed Madoobe raalimka aha ciidamo dawladda federaalka ka socdo ciidamo dawladda federaalka ka socdo in meesha la keeno horta Jubbaland inay ka mid noqdaan raalimka aha laakiin dawladda ciidan Jubbaland haddii ay joogaan ciidamo federaal ay meesha in la geeyo Axmed Madoobe das raalimka ah ciidamada saakilaas Gambuun la geeyo oo ku taageersanahay ra'iisul madaxweynaha oo ku taageersanahay haddii deexda maraan kismaayo way arqad galin karaan aaminsana Axmed Madoobe naftigiisa doorashada Jubbaland ee maanta dhacday mid baa ka horeysay senator Ilyas Cabdi Gaboose ayaa isagana la doortay 2 maalmood ka hor Axmed Madoobe maanta hadalkiisina waa la maqlay sidoo uu u adkaa sidoo kale waxa la sheegay in la geeyay Raskaboone ciidamo oo dawladda federaalka ka socda Jubbaland waxay soo iibsatay baabuur dagaal oo fara badan gaadiid gaashaamana dadka qaar leeyihiin waxa lagu qalabeynayaa ciidamo xiriyaha ku jira oo dagaal sokeeya laga baqaya anigu aragtihaan waxaan qabaa si kastoo dagaal looga baaqsan karo in looga baaqsado doorasho ka dhacay magaalada Kismaayo runtii doorasho sax ma ahan Axmed Madoobe meesha isku caanashubay 12 sano ugu dambeysana sidaas ahayd marka waxa doorasho ma arkay waa caanashub nin Axmed Madoobe waa horta waa nin Soomaaliyeed oo deegaanada jooga nin oday oo Jubbaland u soo shaqeeyay waxaan dhihi lahaa Axmed Madoobe mudane madaxweyne waxaan kugu codsan lahaa oo aan ku soo jeedin lahaa in aad ka shaqeydo sidii meeshaas ay uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah waan ognahay meeshaas waxa ka dhacay doorasho adiga kaliya isku caanashubtay dawladda dhexna waxay rabtaa iyadoo qof ay rabto inay geysato marka xal kuma jiro dad Soomaaliyeed meeshaas degan waxa la rabaa qof walba ee Soomaaliyeed ee mas'uul ah ama shacab ah inuu ka shaqeeyo meeshaas uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah maamul gobolkan ka dhacdo doorasho loo siman yahay oo qof kasta Soomaaliyeed lana doorto qof kasta oo codkiisa dhiibto isna la doorto ama waxna dooran karo doorashadii maanta ka dhacday Jubbaland ayaa ku soo aadaysa xili wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqbali doonin doorashooyinka maamul goboleedka Jubbaland. Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan warbaahinta mustaqbal magaalada Muqdisho.